Amiin wanaagsan jeclayaal. Maanta waxaynu ka hadlaynaa mid ka mid ah koorsooyinka loogu jecel yahay barashadeeda ayaamahan dambe, Digital Marketing Course. Ugu horreyn, qofku marka uu doonayo inuu barto cilmi cusub wuxuu ku qiimeeyaa laba shay. Shayga koowaad waa inuu wax cilmigaas ku shaqayn karo. Ta labaadna waa inuu isagu ku shaqaysan karo. Digital Marketing waa mid ka mid ah koorsooyinka loogu jecel yahay in la barto sababtoo ah waxay kaafinaysaa labadaas shay. Waa nomad skill ama waa xirfad aad ka shaqaysan kartid meel kasta iyo goob kasta aad joogto. Tusaale ahaan adiga oo jooga Soomaaliya ama dal kale ama meel kale oo caalamka ah wax u shaqayn karta qof kale oo jooga meel adiga kaa fog, qaarad kaa fog iyo dhul kaa fog intaba. Sidoo kale haddii aad leedahay business, digital marketing waa skill aad muhiim ugu ah inaad taqaan. Sababta wuxuu kaa caawinayaa inaad ganacsigaaga yar aad adigu u samayso xayeysiimo digital ah adigaan u baahnayn cod kale. Soo dhawaada. Koorsadaas inagahayna maanta waxaynu ku baran doonaa fundamental skill ama asaasiyaadka muhiimka u ah qofka inuu doonayo inuu cilmi dheer u yeesho digital marketing course. Taliya, koorsada digital marketing ee aan baran doono waxay ku kooban tahay laba qodob. Qaybta koowaad waa aan ku baran doono dhammaan theory-yada iyo filosofooyinka muhiimka u ah qofka doonayo inuu noqdo marketer ama doonayo inuu sameeyo digital marketing. Sida qofku inuu faham guud ku haysto sidee wax loo suuq geeyo. Sidoo kale koorsada qofku wuxuu ku baran doonaa basicska marketingka ama sidee qof doonaya ama qof u baahan badeecada aad haysatid uga iibin kartaa. Waxyaabaha aad ku arki doontaan waxaa ka mid ah sida loo sameeyo istaraatiijiyad digital marketing. Sidoo kale koorsada waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo loogooyin isla markaasna ay u noqoto loogo businesskaaga ka dhigta mid magac iyo sumcad weyn ku leh internetka iyo baraha bulshada. Sidoo kale koorsadan waxaad ku baran doontaa sida loo dhiso WordPress. Basic ahaan inagoo faham guud ka qaadan doono isla markaasna practice ku samayn doona dhisi doonana WordPress website. Sidoo kale koorsadan waxaad ku arki doontaa sida loo sameeyo waxa loo yaqaan Search Engine Optimization ama SEO oo ah sida website-kaaga oo si free ah uga dhex muuqan lahaa dhammaan engine-ka wax lagu baaro. Matalan haddaad rabtid inaad Google-ka wax ka raadisid in website-kaaga noqdo kan ugu horreeya ee linkiga ugu horreeya soo fulo. Halkan kama marna inaan ku baran doono xayeysiimaha lagu sameeyo Google-ka ee loo yaqaan pay per click iyo xayeysiimaha YouTube-ka ah ee marka qofku doonayo inuu muuqaal daawado ka soo horbaxa. Dhammaan labadaas skill ee loo yaqaan Google Ads-ka waa mid ka mid ah skills-ka muhiimka u ah ganacsi kasta oo e-commerce ama ganacsi kasta oo online-ka xiriir la leh ama ganacsi kasta oo jira oo doonaya inuu macmiil tafaado. Ugu dambeyn, koorskan waxyaabaha aan ku arki doono waxaa ka mid ah Meta Ads ama Facebook Ads. waxaynu baran doonaa anagoo ka soo bilaabanaa asaasiyaadka sida loo sameeyo xayeysiimaha Facebooka, sida Facebook, Instagram iyo WhatsApp. Koorsadan sidoo kale waxaad ku arki doontaa sida loo sameeyo organic growth ama adigu aan xayeysiin samayn sidee baraha bulshada businesskaaga uga samayn karaa magac iyo sumcad. Waxyaabaha ku arki doontaa waxaa ka mid ah philosophy ama theory ka dambeeya in TikTok uu noqdo midka ugu caansan barahan dambe ee la isticmaalo in si fudud qofka uga samayn karo horumar. Waxaan ku arki doonaa sidoo kale sida loo isticmaalo Instagram-ka isla markaana loo sameeyo profile optimizer oo soo jiidasho leh. Koorsadatan waa intensive course soconaysa waqti kooban waxayna yeelan doontaa Zoom weekly ah ama usbuucle ah qofka ka mid ah memberkan su'aal kasta uu qabo uu ku weydiinayo macalinka koorsada dhiga. Su'aal kasta uu qabo uu ku weydiinayo instructor-ka koorsada dhiga. Soo dhawaada jeclayaal. Maxaa ka hortaagan inaad isdiiwaangelisid? Haddii aad doonaysid inaad iska diiwaangelisid koorsada fadlan linkiga yaalla qaybta commentiga ku dhufo meelaha soo xiriir WhatsApp-keena nambarka ku yaalla qaybta commentiga. Mahadsanid.